aynu ku bilaabnay shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ayaa galay maalintiisii labaad kaasoo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kaasoo lagu xalinayay khilaafka ka taagnaa doorashada markan waxaynu aqrinayaa wariyaheena aadan cali axmed waxa maalinkii labaad magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya ka soconaya shir u dhaxeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyadoo shirkani uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa ku bilaabmay jawi degan waxaana la sheegayaa in shirka maanta uu ka adkaa kii shalay oo ay madaxda si toos ah u gudagaleen ka doodista qodobadii heshiiskii 17 September iyo waliba kii 16 Febraayo magaalada Baydhabo ka dhacay waxa jiray xalay in kulmo Muqdisho ay ku qaateen madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo waliba Jubbaland iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland sidoo kale waxa jiray kulan ay wada qaateen madaxda Koonfur Galbeed ama madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo waliba midowga musharaxiinta waxaana kulamadan dhamaantood looga arinsanayay xal u helidda doorashooyinka dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo garwadeenka shirkani ayaa horaan sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in shirkani uu ku soo idlaado guul waxaana uu ka mahadceliyay taageerada shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo ay ku jiraan midowga musharaxiinta oo ay ku muujiyeen dadaalada uu ugu jiro in heshiis laga gaaro sidii dalka doorasho u aadi lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan shirkan oo galay maalinkiisii labaad ayaa maanta si habsami leh ku soo idlaaday waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan la soo gabagabeeyo lagana soo saaro warmutiyeed ku qotoma xalka gaaridda doorashada dalka ugu dambeyn afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay maalinka labaad ee shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka Bismillahirrahmanirrahiim waxa soo idlaaday maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed arrimaha doorashooyinka kaasoo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shirkan oo ay ka qayb galayeen madaxda dawlad goboleedyada Soomaaliya madaxweynaha Puntland madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha Hirshabelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa runtii maanta waxa uu ahaa mid yididiilo leh marka la fiiriyo sida madaxda furfurnaanta leh ay uga munaaqashoonayeen arrimaha taagan runtii waxa aad maanta loo guda galay ka hadlidda qodobadii humaaga uu ku jiray ee turxan bixinta u baahnaa la xiriiray ama marka ay timaado arrimaha doorashooyinka madaxdu si furan ayay maaragtay u bilaabeen inay arrimahaasi ka hadlaan marka la fiiriyana shirka waxa la oran karaa aad buu uga horumarsanaa uga wanaagsanaa marka la barbar dhigo shalay sidii uu ku bilowday waxaa la isku soo noqon doonaa haddii idmo shirku way sii socon doonaan maalinta bari ayaa la isku imaanaya oo madaxdu ay sii wadi doonaan shirkooda laakiin markaad fiiriso sida hadda ay madaxdu isula jaan qaaday iyo sida ay maaragtay arrimaha muhiimka ah ay u kala qaadanayaan waxaad moodaa in horumar weyn uu jiro waxaana la rajaynayaa in ugu dambeyntii natiijo wanaagsan ay shirkan ka soo baxdo laakiin madaxdu hadda waxa ay xoogga saarayaan in ay maaragtay turxaan bixiyaan oo qodob u qaadaan qodobadii maaragtay horay ay cabashadu ama tabashadu ugu jirtay waxaana la filayaa marka ay madaxdu isla soo dhameeyaan in warmurtiyeed rasmi uu ka soo bixi doono haddii aaba idmo aadan cali axmed VOS TV magaalada muqdisho